وأنكو سلامي صاحب haddii aad weydiiso waxa uu samaynayo ninka gacaleysiis nin kale loo galbiyay waxaan ku leeyahay ugu horeyn Ilaahay qalbiga ha u samato bixiyo ma jiro ifka oo dhan qalinka xanuun kulul in ninka qalbigiisa qayb ka mid ah oo u dhaxno laga jaraa isagoo inta quuseed ku eegayo aan axyiga daamidna aan lahayn nuuxsi iyo nafdhawrashana dhan iskaga duweyn saaxiib waxa uu ku leeyahay imaam muqassiri tafsiirkiisa quraanka aayadda uu nabi Sulaymaan naxariisi nabadgelyo korkiisa aad ku leeyahay لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أنو عذاب يقولها سيدرا أم بوان قورعيا عذاب كاسيدراني وأيونك لقيه يساقي عيدة وتشعليها ووايتانك عيدة إن تشعلها وغربة جوني وحاضو باهانتهاي إنا درين ذاك لفظة يسو صاحب يسو أفوفو كانها اللابتا ذا كهوميا دابكا سيقل بقاقا كوغن الدمي ورورتنا إلهي بري وتصبيح سو دم دافو يديسو hab cusub oo aad naftaada nafsiyaad ku darasiisan hal abuur sida inaad ninkaasi loo sii galbinayo dhanbaal u qorto adigoo aan dhab ahaan duraynin irrumayso saaxiib habkaasi waxa uu ka caawinayaa wuxuun haba yaraatee budhe ha u herseedin habeenna inay dhabanka dhigto iyadoo ay isheedu lini ku taagan tahay aad ayay uga kadeedmaysaay marka ay murugooto caloosha ayaa xanuuntaa kaarka qabtana weyla laba bogleynaysa oo ay la rafaadaysaa oontani weydiinayaan samee xeelado aad kaga qosliso xataa haddii ay kalifayso inaad raaligelin bixiso iyadoo kaa khaldan ha ka labalabayn muhiimaddu waa inaad ka horjoogsato in ay la hoyato murugo laabteeda hulabaysaa ku dheh adadayga kaaga muuqda ayaan kuu been sheegin gudaha ayay ka wanaagsan tahay shakhsiyad lagu xasilo ayay leedahay aad ayay u dabacsan tahay qofka aan aqooni waxa uu malaynayaa inay madax adag tahay oo kariwaah aan dhanna loo dhaqaajin ay tahay si qofka sida dhabta u yaqaana waxa uu garanayaa inay tahay caruur lacag weyn gabadh yar oo guudka sari ka weyn oo dhadhanka nolosha oo dhan ku gacan gelinaysa haddii aad daryeel iyo danayn tusto oo qalbigeeda in loo sii maro un lagu hanto joojiisa adkeynta iyo qalafsanaanta had isu gelinayso inay isu qalafso haba kama dhaafaysidee inaad ku adadkaataa waxa ay caraynaysaa dagaalyahanada madaxa adagii gudaheeda hurda haddii si aad u dabacsanaato dhibirsanaana aad kula dhaqanto waxay si dhab ah kuugu noqonaysaa midkii dabacsan caleemaha ubaxa u sheeg ninkaasi inay jeceshahay in la daneeyo uuna dhankeeda aad ugu dheeraado daryeel badan oo siiyo in koobka shaaha aad ugu shubtaa way farxad gelisaa gaar ahaanna fujjaanka labaad inaad hurmada cuntada afka u gelisaa way farxad gelisaa xagtimaha yaryar ee hawsha guriga gacmeeda ka soo gaadhay inaad dareento oo aad xaalkeeda weydiisaa aad ayay u cajabisaa iska jir iyadoo kula hadlaysa inaad dhabarka u jeediso aad ayay u dhibsataay marka ay kula sheekaysanayso si danayn loo eeg oo dhigaha u raarici waxa jira erayo aad u badan oo ay indhaha ka sheegto aanay afka ka odhanay marka aad si wanaagsan u barato hayaad qodobkan si toos u fahmi doontaa weydii sida uu maalinkeedu ahaa waxay quudatay halka ay aaday iyo maalinka inta hadhay waxay doonayso inay fasho marka ay dhibaatooyinka shaqadeeda kaaga warramayso dhigaha wada sii lama soo doonanayso culayska mushkiladaheeda irrumaysaniyow aniga iyo adigaba way naga karti badan tahay ee dhibaatooyinka shaqadeeda in ay kaaga sheekaysaa waa uun hab ay culayska iskaga khafiifinayso u sheeg marka uu la dhaqmayo iyada inuu garaad badnaado oo u feejignaado u fiirso waxyaabaha ka dhiman oo u keen iyadoo aan kaa dalban aad ayay isula haweyn tahay oo qab heer sare ayay leedahay oo haddii ay haraad la ooman tahay kaamo dalbanayso koobiya ah inaad soo waraabiso si aad ayay ugu farxaysaa haddii aad fahamto adigoo aad waraabiso intaay danayso waxyaabaha ay helayso ka badan waxay danaysaa habka ay u helayso u dheh markaad aragto iyada oo murugaysan alla hadlin niyadda ha u dhisin waxay ku jirtaa markaa xaalad xataa haddii aad ku qayliso aanay maqlaynin ee laabta ungeli iyadoo ilmada saydhisa ayaad arkaysaa haddii ay dhacdo oo ay oydana ogow inay kugu kalsoon tahay aad ayay u dhigtaa inay qof taag daran u muuqataay balse marka ay ku jeclaato ilmadeeda iyo oohinteeda oo dhan ayay kaydinaysaa ilaa inta ay ku arkayso ee inta ay laabtaada soo gasho ay sidii ilmo dhallaana dhabanadeeda ilmada u qoynayso ku dheh aad ugu kalsoonow waa garab iyo gaashaan aad si buuxda ugu tiirsan karto iyo xogayo kaydinta sirahaaga aad ku aamini karto cayaayir iyo dhayal waxba kuma dhaafaan xog lagu aaminay afkaasi ugama joqdo xaashaa inay sooba hadal qaataa
dhankaas waa ka diblomaasiyad baarka sare ah waana gabadh hufan sidii inay tahay dhigana ku saabsan dadla dhaqanka wanaagsan. dareennada way dhowrtaa, laabta way dejisaa, xilliyada ay ugu masayrka badan tahay way dhoolacadaysaa maadaama aanay kula doonayneed murugooto. gobonnimadeedu waxay gaadhsiisan tahay heer qofka ay jeceshahay ay ka hormariso qudheeda. alla nasiib badana ninkii ay jeclaataa. qudhe istiidooyinkaasi aad marka koowaad kala kulmayso amba aad ku arkaysaa ku dagmin, oo haddii dabacsanaanteeda aad ka hesho ha ilaawinka kanaanteeda iyo ficiloonaanteeda gudaheeda ku kaydsan. haddii ficiloonaanteedaasi ay ku baqagelisana ha hilmaamin qofka dabacsan ay noqoto marka ay raallida tahay. waxaan ilaaway inaan kuu sheego in aanay hore si fudud raalli ugu noqon, waana dibdigeeda waa inaad marar iyo marar badan isku daydaa inaad raalli geliso. ilaahay ayaa aanan ku dhaartay way istaahishaa. haddii aad aragto iyadoo shaqadeeda ku mashquulsan ha odhanin qalbi ma laha. inay guulaysato aad ayaa u jeceshahay, inay nafteeda ku fahanto ay meel iska soo saartana aad ayaa u jeceshahay. way necab tahay inaad cid kale ku tiirsato, wayna dhibtahay inaad cid u baahata. se marka ay wax jeclaato, marka ay si dhab ah wax u jeclaato, ma jirto gabadh kale oo caalamka ku dhaqan oo qalbigeeda oo kala lihi. isku day saaxiib inaad sidaasi samayso, laga yaabaa inay ku anfacdo. haddii ay ku anfici weydana dee waxba kuma aanad waayin oo waxna kaama aanay hallaamin. waxaa jira khasaaro weyn oo khasaare kasta oo kaaga dambeeya uu noqonayo jallaafayr oo ku suuldaartay oo aan wax ka soo qaad sidaas lahayn. mana jiro khasaare kaga weyn ninka inuu waayo gabadhuu jeclaaday. waa qadarta ilaahay saaxiibee keedabso. xanuunkaaga mahadinta ilaahay ku tabiib, samirkaagana saatirka weyn u kaasho oo dheh ilaahay ayaa igu filan, cid la waqiishana isaga ayaa ugu mudan. waa qadar dhacay iyo qoraal hore loo dhigay. laa tadri lacalla allahu yuxdisu bacda daalika amraa. ogid in ilaahay intaas dabadeed uu wax fulin doonee